الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي حية تمنات هي كتاب كان حكم وفوائد من روايع الإمام ابن القيم رحمه الله في فن توقي المعاصي وعور الشيخ الربال كان إنه وشيغو معصية سيدي لساقا إلالية maxaa ugu fiican oo dembiga iyo macsiyada laysaga dhowraa wuxuu yidhi mastuciina cala atakhalusi min ashari bimithli albucdi can asbaabihi wa madaanih ma jiro wax lamid ah sida uu uga takhaluso ama looga fogaado sharta iyo dhibaatada iyo macaasida in laga fogaado wax lamid ahoo sidaasoo kale qofka ugu caawinaya ma jiro in laga fogaado asbaabtii keeni lahayd dembiga iyo meelihii dembiga laga heli lahaa labadaa shay inaad ka fogaato shay sidaas oo kale kugu caawin karaay ma jiro tusaale asbaabtii maxaa kamida maala asbaabtu way badan tahay tusaale markaan kasoo qaadno azina alfaaxisha maxaa lagu gadaamay oo ka horeeya bal u fiirso zinada intaan la gaadhin rabbi wuxuu yihi walaa taqrabu zina hau dhowaanina dhowaanta waxaa kamid a khalwa ayaa kamid ah kow annadra kamid a in la isfiiriyaa kamid ah waxaa kamid a in la iskhalwo meel cidlo ah iyo qol laba qof isla galaan oo ajnabi kala abaa kamid ah waxaa kamid ah in waa kii ninkii shaacirka lahaa nadratun faibtisaamatun fakalaamun famawcidun faliqaau marka meesha ay ku dambayna waxaa weye marka madaanihii waa meelihii inaad goobtiina ka fogaato oo yidhahan meel cidlo a qofkii isugu tegin asbaabtii keeni lahaydna ka fogaato marka waa qeyb kamid a mithaal almuhim dunuubta waxa ugu badan oo kaa dhowri karaay waa ka fogow meeshii aad ku geli lahayd ka fog walidaalika ayaa xitaa qofka la yidhahdaa keligii isagoo ruuxu yuusan guri degin ama yuusan safar keligii gelin yacni mar walba dad inuu kula jiro laba qof saddex qof dad isla jooga inaad tihiin keligaa haddaad meel soo xidhato hadde shaytaan baa ku labaynaya marka macluumada sheekhu wuxuu sheegay kitaabkiisii cuddatu saabiriin wadakhiiratu shaakiriin xaqiiqada waxyaabaha aljad walkasal yacni qofka dadaalka iyo dadaal la-aanta xaqiiqadooda haddaad rabto ma rabtaa inaad kala ogaato shayga dadaalka waxa caawiya ma rabtaa inaad ogaato wahsiga iyo waxqabsi la-aanta waxa isagana kow ka ah wuxuu ihi aljaddu kulluhu xaraka dadaal kulligiiba haddaad weydiiso waa un xaraka alxaraka waa dhaqdhaqaaq waa waxqabsi waxay dhahaan carabtu alxaraka laha baraka bay yidhahdaan xarakada iyo dhaqdhaqaaqu baraku leeyahay mar walba walkasal kulluhu sukuun kasalka oo ah caajisnimadana dhammaantiiba waa xasilid iyo qof aan dee khumuul iskaga jira hadday tahay inuu marka tusaale waxqabsi baa rabtaa soo maaha waa inaad kacdo waxbaa rabtaa inaad barato jaamacad baa rabtaa inaad barato iskuol wuxuu rabaa ha noqdo qur-aankii soo kac xilli hore subaxii waa inaad hore ka labisato waa inaad orodo waa marka xaraka inaad shaqaysataa rabto adduunya hesho waa inaad orodo marka shay kasta haddaad rabto inaad wax qabato waxa weeye xaraka iyo dhaqdhaqaaq iyo socod weeyaan ma rabtaa inaad wax qabsi la-aan ma rabtaa inaad ogaato meel jief halkaasun adigu fadhi marka taasina waxay noqonaysaa wax qabsi la-aanna calaamadiisi wataa faraxu lqalbi almeyit qalbiga dhint macluumadaas iyadan sheekhu wuxuu ku sheegay kitaabkiisii badaa'icu lfawaa'id faraxu lqalbi almeyit qalbiga dhintay qalbigu midna waa nool yahay midna waa dhintay inay quluubtu qaar dhinteen qaarna nool yihiin rabbi baa dee qur-aanka ku sheego qalbiga kaafiriintu waa qalbi dhintay qalbiga dadka muuminiintina waa qalbi nool qalbiga munaafiqiintuna wuu jiran yahay shahwana wuu ku jiradaa shuhbana wuu ku jiradaa marka wuxuu yihi sheekh ibnu lqayim waama meytu lqalbi fainamaa yajidu lfaraxa cinda dafrihi bidanbi walaa yacrifu faraxan gayrah qalbiga dhintay ma rabtaa inaad ogaato wuxuu ku farxayaa dembiga markuu helo ku farxaa
farxad kalena maba yaqaano. maxaa laga wadaa? dadka rasuulkuna wuu sheegay sala allahu alay wasalam oo qofka dhintay oo qalbigiisu dhintay, wadarteen kuwan fusaaqda iyo dadka xunxunka ah, markay caawa ay xumaan sameeyaan berri oo dhan waa faraxsan yahay, wuu ka sheekaynayaa. markuu helay xataa wuu ku farxayaayo wuxuu moodaya adduun inuu oo dhan caawa uu helay. marka laakiin qofka wanaagsani murug iyo walbahaar ayuu isagu u gogo-ayaa. marka farxad kalena kani maba yaqaanaba. culummada wuxuu sheekhu ku sheegay miftaaxu daari sacaada ayuu ku sheegay. ilaahay subxaanahu watacaala hayna xifdiyo, allana hayna ilaaliyo. wajazaakum allahu khayr wbaaraka allah fiikum.